السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaalkan cusub muuqaalkan waxaan rajeynayaa in aad wada dhamaysan doontaan sababtoo ah waxa ka hadlaya 7 step ama 7 istiraatiijiyadood aad kaga guuleysan kartid akoonada challenge-ga ah oo aad faa'iido fiican kaga sameyn kartid akoon fadhidana aad gudbi kartid marka 7 step haddii aad say tahay aad u raacdid waxaan rajeynayaa 100% inaad ka guuleysan doonto shirkadda aad akoonka haysatid challenge account ama funded ka ama account real ka ku dabaqmi kartaa marka ciwaankeen waa kan waa 7 step ama istiraatiijiyadood oo guul ah kuwaas oo aad account challenge ga aad ku bedeli kartid funded account rule-keena koobaad waxa uu noqonayaa marka hore faham understand rules and objectives marka hore waxaad fahantaa ruleska iyo ujeedooyinka tusaale ahaan shirkadda aad challenge ka qaadanaysa haddii ay tahay funded next akoonadeeda marka hore kala faham ruleska u degsanna faham tusaale ahaan akoonada ay shirkaddana bixiso evaluation baa kamid ah express baa kamid ah stellar baa kamid ah marka waa inaad fahantid akoon walba iyo ruleska u yaala tusaale ahaan profit target ka oo kale daily loss ka oo kale overall down ka oo kale time limit ka oo kale waxyaabahaas oo dhan waa inaad iska akhrisid marka read all the challenge rules carefully iska akhri challenge rules ka ama rules ka u yaala shirkaddan challenge ka si taxadar leh si aanad u bridge garayn limit ama rules ka mid ah aad bridge garayn saakon kale marka aad fahantid qodobkaas istiraatiijiyada labaad baad soo gudbeysaa istiraatiijiyada labaad waxay ku leedahay use risk management isticmaal qofka aan trade ka wax la yiraahdo qofka aan risk management aan lahayn weliga faa'iido kama keeno tusaale ahaan risk only 2.5% ama 1% per trade isticmaal haddii aad 1.50 maashoo kale ruulkaas ku yaalo already waad manage karaysa riskigaaga markaasi aad capitalkaaga u ilaalisid ama down-ka inaad gaadhid daily loss-ka ama maximum-ka waa inaad isticmaasho percentage ku xadidan aad leedahay qodobka labaad wuxuu leeyahay qodobkan kusii hoos jira stop loss samayso every trade risk management isaad u samaysid waa inaad stop loss aad trade kastoo aad samaysid stop loss waana ku yaala suuqani waxaa iman karaa news baa iman karaa waxyaaba badan baa iman karaa marka waa inaad stop loss uu ku xadidan yahay ku yaalo si aad profit target ba kugu yaalo leverage ama off trade ha samayn si aad magaranaysaa markiiba aad hit target aad u gaadhid si degdeg aad u gaadhid wax yar baad samayn kartaa stop loss kaagaad yaraysan kartaa profit target kaagana double baad ka dhigan kartaa saas ku gaadhi kartaa target kaaga maalinlaha qodobka saddexaad wuxuu leeyahay focus on high probability setups macnaheedu waxa weeye istiraatiijiyad probability-geedu waxay yahay ama aad ku kalsoon tahay 100% isticmaal sida supply and demand oo kale istiraatiijiyad adiga ku khaasa oo aad leedahay faa'iido ka gaadhaysaa qof kale waxba kaama gelin umad kale waxba kaama gelin adigu just waxa lagaaga baahan yahay in aad istiraatiijiyadaada aad ku kalsoontiid 100% aad isticmaashid waxaad iska ilaalisaa avoid emotional or revenge trading waxaad iska ilaalisaa trading-ka inaad ka argudatid ama aad emotion aad noqotid oo haddii aad loss aad gashid oo kale aad xanaaqdid aad istaahid kan kale kaga soo celiya double ku dhufatid oo isagana waa khasaare kale ku geliyo revenge baa la yiraahdaa ka argos trading lagama argosto ruleski ku yaala un baa la raacaa maalinka haddaad faa'iido ka heshidna alxamdulillah haddaad faa'iido ka waayidna maanta maaha maalintaadii beri u dhigo iska dhaaf targetkaaga baad gaadhay loss iyo target profit labadaba waad ku tala gashay iska dhaaf maanta maalintaadii maaha loss baad gashay berito la u dhigo isbuucaagi maaha loss baad ku jirtaa isbuuca dambe u dhigo saas waay marka revenge ha samayn maanta haddii aad khasaare gashid isla maantaba ha rajeyn inaad khasaare aad kasoo kabatid aad faa'iido keentid trade only waxaad trade garaysaa waqtiyada liquidity-gu uu jiro oo kale suuq dhaqdhaqaaq fiican uu sameynayo sida London session oo kale iyo New York session ka isticmaali kartid adiga ku habboon isticmaali kartaa labadana waad ka qaadan kartaa trade aad marba mid qaadan kartid hadaad ka hore
guuldareysatid New York baad qaadan kartaa London session waad qaadan kartaa marka adiga waxa lagu leeyahay un waqti liquidity-ga ama suuqa dhaqaaqiisa ama dadka isticmaalaya ay aad u badan yihiin oo kale tusaale ahaan London oo kale ama New York oo kale oo mararka suuqu dhaqaaqa fiican sameeyo markaas oo kale trade qaado istiraatiijiyada afraad ee aad ku guuleysan kartid waxa weeye in aad journaling sameysid ama aad magaranaysaa diiwaan gelisid trade-adii aad soo gashay oo tusaale ahaan my Facebook kale aad ku sameyn kartaa dib baad u fiirin kartaa isbuuc markuu dhamaado bish markay dhamaato oo kale trade-adii aad soo gashay oo kale 20 trade baad qaadatay 5 baad ku khasaartay 15 baad faa'iiday ama 12 baad faa'iiday 8 baad ku khasaartay adigu waxa lagu leeyahay journaling aad sameynaysid maalin walba trade aad gashay beeriska kugu fiican oo kale istiraatiijiyada isticmaashay waxaas oo dhan journaling baad sameeyaa dadkeena waa ku adag tahay waan rajeynayaa inay ku adag tahay journaling laakiin faa'iidadiisa lama qiyaas karo waxa soo raacsan maxaan ka faa'iidayaa waxaad ka faa'iideysaa suuqii baad sal dhiganaysaa marka aad maanta journaling sameysid berito marka review garaysid isbuuc dambe waxaad arkaysaa beeriska ku faa'iiday kuwa aad ku khasaartay kuwa aad ku degdegtay kuwa aad waqtiga dheer haysatay waxyaabahaas oo dhan kala soo baxaysa marka xikmad baa kaaga kordhisa yadana ku dadaal inaad review ku sameysid maalin walba wixii isbuuc walba wixii aad journaling ku sameysid bil walba dhowrkii biloodba waa inaad dib u raacdid journaling waa muhiim qodobka afraad ee ku guuleysan kartid waxa weeye inaad iska ilaalisid newska waa la socotid suuqa baa laga wadaa newska oo ka faa'iideysan kartaa NFP baa kamida CPI baa kamida FOMC baa kamida waa inaad newska waa inaad baratid xilliyada soo dhacayaan waa inaad ka faa'iideysan kartid waa suuqa iska ilaalin kartid oo aad adigu moogan kugu soo bixi karo marka waa iska ilaalisid marka newsku aad muhiim yahay news trading-kana kala shirkadaha badankooda ma wada isticmaalaan marka waad qaadan kartaa news trading-na waa samayn kartaa qodobka lixaad waxa weeye waa inaad consistent aad ahaatid qof magaranaysaa joogtayn leh oo aad maanta in trade gashiis ka deyn isbuuca dambe maalin dambe aad ku soo laaban haddana 5 trade aad gelin bariga dambe aad ku soo laaban hal trade aad gelin waa inaad ay wax ku yaaliin tusaale ahaan maalinka waa inaad hal trade ama laba trade waa inaad qaadatid targetkaaga waa inaad taqaanid target boqolkiiba 2 baan rabaa 0.5 loo sano waan ku tala gelayaa waa inaad saas samaysid laakiin haddii aad consistency aan lahayn waxay noqonaysaa inaad khasaaro miidhan aad guratid ka consistency noqo part time u qonday waqtigaaga aad trade garanaysid waqti gaar ah ku lahaado New York man trade garanaya London session man trade garanaya waa in saas ay ku noqoto consistency waa inaad yeelatid taasaa faa'iido laga gaaraa qodobka toddobaad ee u dambeeya una muhiimsan waa psychology-ga waa manhajgaaga maxaad ka aaminsan tahay trade-ka aad gelaysid maxaad ka haysataa marka aad khasaartid maxaad ka haysataa marka aad faa'iidid waa muhiim psychology trading baa la yiraahdaa buugaag badan baa laga qoray muuqaalo badan baa laga diyaariyay koorsiyo badan baa laga diyaariyay waad raadsan kartaa waa in aad patient aad ahaatid dulqaad waa inaad yeelatid don't chase the targetka ha eriyan tusaale ahaan oo kale akoonkan 10% baa laga rabaa inaan target gaadho marka waa inaan 5 maalmood ku gaadho macquul maaha waa inaad patient yeelatid targetka ha eriyan iska daa iyadoo iska socoto ruleska ku yaala un raac maanta waxaan rabaa 1% inaan gaadho raac bas qodobka labaad waxa weeye waa in aad walk away samayn kartid ama aad ka socon kartid marka aad after loses markaad sameysay lose garaysid trades ka qaar kamid ah ama faa'iidooyinkaaga waa inaad ka socon kartid maanta hal trade ama laba trade baan galay labadiiba waan ku khasaaray waa inaad iska xiri kartid iska dhaafi kartid beritola u dhigan kartid marka revenge ha samayn baa lagu leeyahay waana aad muhiim tahay emotion-kaaga inaad xukuntid aad meel ku xidhid weligaa yaanad degdegin marka aad degdegtid ee aad isku qaadid meel walba aad istaadaalkan ka faa'iideyso baad jabaysaa dadka khasaaray oo dhan soo warayso dhammaantood markay is yiraahdeen faa'iido badan samee ama ay khasaare ay galeen is yiraahdaan revenge suuq samee ama ka argooso suuqa ayay khasaareen marka iska ilaali qodobkan waa qodobka ugu muhiimsan inaan number 1 ka dhignaabay ahayd laakiin halkan mid naga soo dhacay sabab ma noqday waana qodobka ugu muhiimsan marka saaxiibayaal toddobada qodob
ayaan rajayn lahaa in aad raacdaan taad suuqa faa'iido uga sameysaan. qofka hadduu intaa raaco uu ka raydsanaya inuu qof shaqeeyo isaga gaar u shaqaysanaya, weligaana ku degdegina adigoo shaqo kala haya in aad suuqa u go'did. suuq waa waqti yar buu baahan yahay. London session oo kale galabkii oo kale aad samayn kartaa, trade garan kartaa adigoo shaqadaada kala subax iska kala haya. waana qof doqona qofka shaqooyinkiisa oo dhan uga tagay inuu suuqan u go'o. no anu cidna kulama taliyo. adigoo shaqadaada kala wata, adigoo wax baranaya, adigoo oo shaqaysanaya, adigoo oo hawlaha kala wata ayaad hal saac 2 saac oo kamidana suuqa aad siin kartaa. habeenkii baad samayn kartaa, galabkii baad samayn kartaa, subaxii baad samayn kartaa. xilliga shaqadaada caadiga ah ama waxbarashadaada kale aan ahayn ayaad siin kartaa suuqan. saasana faa'iido aad ugu gaari kartaa. marka saaxiibayaal waxaan rajaynayaa in aad todobada qodob qaadan doontaan insha Allah. 10 sano kala joogto wax baynu samayn doonaa insha Allah. muuqaal noocan baynu ka samayn doonaa wixii suuqa aan ka fahanay ee aan ka baranay muddada 7 sano ah ee aan ku jirnay. marka saaxiibayaal muuqaal sano kala baan samayn doonaa. like sar muuqaalka insha Allah, subscribe sar haddii aad nagu soo biirin, sina share gare linkkeena Telegram-ka hoos yaala nagu soo biir. shirkadaha challenge-ga aad u baahan tahay funding next ayaan kula talinaa oo linkeedu hoos yaalo iska diiwaan gelin doontid. WhatsApp-kana waad nagala soo xiriiri kartaa haddii aad wax su'aal qabtid ama caawimaad ama in account lagula furaba. WhatsApp-kaygu waa diyaar mar walba, waa lagu jawaabayaa. WhatsApp-ka nagala soo xiriiri doontaa insha Allah. Telegram-keena nagu soo biir. Assalaamu calaykum.